qolada qaadka cuntaa marka hore la baalka lagu goosta cabaan marka la jooga sheekada isku daba dhacda markaas la wada hadlaa waxay yiraahdaan maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay yiraahdaan manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyinaad u fiirsatay midi garaabadan agtiisa taalu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay yiraahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihiin qofku inuu jidhkiisu controlku ka lumo qaybaha qaar ka mid ah ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabaha ay samaysa waxa ka mid ah bay yiraahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contraction ka release ba ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag ba ku dhaca baasir ba ku dhaca yani xanuunada noocaasi oo dhan ay la kulmaan waxa ku dhaca la yiraahdo qofku waqtiga kan hadduu sii badsado ama bay yiraahdeen markuu isku dayo inuu iska yara daayo waqti yarka uu ka baxo hallucination ba ku dhaca bay yiraahdeen inuu waxyaabo sawiro waa waxaan ay Soomaalidu dubaabka tiraahdo Soomaalidan maqalada qaysa markay yiraahdaan qaad baa waayo dubaab baa cunay kan baa dhacay waa hallucination iskan bay yiraahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxa ka mid ah bay yiraahdaan hadduu qofku markuu iska daayo tremor ba ku dhacay isagoo iska fadhiyo ba kolba jirka meel dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jirku dhaqdhaqaaq badan uu sameeyo nightmare ba ku dhacay inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhahayn jirkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of cathinone uu qaato mesela ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram cathinone buu u baahan yahay sidoo waxaanaynu sheegayno dhan uu gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa waqtigo yar inaan wax badan ka talaabo oo soo koobo waxyaabaha ilaahay inuu sababa waxa ka mid ah sonkorta jidhka baalada ku jira tribinoidska ku jira daraadeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tira badiya Soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraabay moodayaan waxyaabaha uu keeno waxa ka mid ah bay yiraahdaan xanuunada psychological-ka qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idraabka nafsiga ama waxa nimka Soomaalidu ay buufiska u bixisay qofka codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa schizophrenia buu la gaadha oo inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo oo yiraahdo waa la xamanayay qof laba qof meel iska fadhiyo yiraahdo maxay maagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxa ku dhaca bay yiraahdeen qofka isagoo quramaha waliba waqtigan dambe maadaama uu batay consumptionkiisi cunistiisi markay badatay qaad quramaha bay leeyeen sidiisu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinayo caleenta iyada la iibinayo inay fiicnaato la rabaa dhalaasho marka pesticides iyo insecticides iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la mid ah lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuna qaar ka mid ah DDT caadiga dhiigooda khaatirtu inta baadho DDT caadiga laga helo ma aha inuu qaadku materialkan DDT-ga uu leeyahay ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyay wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kale uu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacay inuu sigaarka cabo dad badan oo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jabinayaa ay yiraahdaan waa runtood qaadku kor buu qaadayaa markuu dawakhana khamr markuu cabana dib u celinaya hadana waa laba waaliyado midba dhinac u socoto waa ka mid
dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunayo waxa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa arkay maalmaha ka mid ah waddan Yurub ka mid ah bay godadka yar lagu qaylo mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin 12 qof bay qabteen oo 8 bay TB ka heleen yani maca way wateen raajitadoodii dadkan waa loogu taag waayay dhakhtar kaale iyo waxa marka qolada hygiene-to guuraysa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawirradii wixii la rabay laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB kaaga isagu TB-da ma keenin laakiin circumstances-kan ku xeeran dhulkan lagu qayliyo meesha la fadhiyo waxa kan ayaa keena problems kan tirada badan leh